guryo wadareedkan oo ka kooban 12 sakadood ayaa laga dhisay magaalada Qabri Bayax iyo Harta Sheekha kuwaasi oo maanta xadhiga laga jaray. Guryo wadareedkan oo dhismahooda ay iska kaashadeen xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dawlad deegaanka Soomaalida iyo wakaalada horumarinta iyo maamulka guryaha ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka faa'iideysan doona dadka danyarta ah, macallimiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka. Wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dawlad deegaanka Soomaalida, Maariye ku-xigeenka wakaalada horumarinta iyo maamulka guryaha ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa xadhig jarka guryahani kadib sheegay in guryo wadareedkani ay wax weyn ka bedeli doonaan baahida guryo yaraanta iyagoo sidoo kale qayb muhiim ah ka qaadan doona bilicda iyo quruxda magaalooyinka laga hirgeliyay. maamulka magaalada Qabri Bayax oo guryahani feeskii koowaad ay dhamaadeen kuwa kalena weli ay socdaan. maanta waxaanu ka soo jirnay xadhiga hal blog oo ka kooban 4 GB kuwaasoo sidii loogu talagalay iyo xilligii loogu talagalay kusoo gabagaboobay. sidoo kale ayadana Harta Sheekh oo guryo tayada aad sareyso laga dhisay waanu maanta xadhig ka soo jirnay. si guud guryahani waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii xafiiska iyo xukuumadda ay wadeen wax laga qabanay baahida guryo yaraanta ee ka jirta magaalooyinka. kuwaasoo isleenahay wax bay ka tari doonaan baahida guri ee ka jirta magaalooyinka soo koray iyo magaalooyinka deegaanka. kuwaasoo bilow iyo dadaal u ah hor leh hadda dadaalada xukuumadda sameynayso. marka aslahay sidii loo baahnaa ay nagu soo qabsantay. runaantii guryahan waa baahi ay aragtay xukuumadda ee u qabto bulshadan labadan magaalo taas oo la rabo inay ka faa'iideystaan dadka macallimiinta iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadka danyarta kuwaasoo la rabo in adeeg bixinta bulshada ay sii dardargeliyaan si ay mustaqbalka berito guri yaraantii ka jirtay magaalooyinkaas ee u yaraato ayaa maanta booqashadanada ugu muhiimsan ahayd. run ahaantii guryahan soo aragnay waxaan aragnay guryo tayo fiican ah oo lex jeclay ka muuqato kuwaasoo mustaqbalka magaalooyinka kalena la rabo in loo ballaariyo oo laga dhiso. warshahani lagu dhisayo guryo wadareedyada deegaanka oo la bilaabay isbedelkii kadib ayaa laga hirgeliyay dhammaanba gobolada deegaanka waxaana loogu talagalay in lagu kabo dadka hayntoodu hooseyso qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda sida barayaasha bahda caafimaadka iyo kuwa kaleba.